hadduu qofku zinaysto adduunkiisa ilaahay wuu baabi'iyaa aakhiradiisana ilaahay wuu baabi'iyaa way ku dhamaatay maalintaas zinaysta way ku dhamaatay markaasuu nabigu waxaa kale oo la yidhi watajcaluhu fii nakidin daa'imin wahammin laa yufaariquhu murugo fakar madax xanuun walwal ilaahay aan weligii ka baxaynin baa ilaahay ku ridaa maxaa walwalka loo geliyey markuu zinaysanayay buu faraxsanaa ilaahay baa ku ciqaabay fiiri markaasuu haddana tusabbibu zawaala asixati waalcaafiyati waxay keentaa caafimaad la'aan ilaahay caafimaadku qofka ka qaataa maxaa looga qaaday markuu zinaysanayay wuu caafimaad qabay qof sakaraad oo zinaysanaya ma jiro wuu ka cararayaa zinada maadaama uu caafimaad uu qabay caafimaadka ilaahay ka qaadaa waxaa la yidhahdaa dadka ugu degdeg badan xagga cimriga waa dadka zinaysta waxaad arkaysaa gabadhii yareed oo qurux badnayd oo isku dhex daatay iyada dhan ninkii dhallinyaradaha quruxda badnaayo isku dhex daatay noloshu ku uraya qofkii uu ku dhimanaya markaasuu haddana maxay keentaa wa xuluuli albalaaya waalasqaan jirrooyin bay keentaa jirrooyinkaas waxaa ka mida ikhwaani nabigu inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa dahara azinaa'u fii qaryatin waalribaa axalluu calaa anfusihim ciqaab allahi tacaala waa xadiid ibn maajah wariyo saxiixa hadday qolo ay muujistaan zinada iyo ribada naftoodii bay ciqaab dul saareen ciqaab baa ku dhacday muxuu nabigu sala allahu alay wasalam ciqaabta maxaa ka mida laa tazaalu ummatii bikhayrin maa lam yafsha fiihim waladu zina ummadaydu khayr bay ku sugan tahay intaan carruurta awlaadu zinada ahoo garacyada ama wicilladu ayna ku dhex faafin meeqa wicil ba haddana dhex joogta meeqa gabdho dhalaaya ilma aan aabbahood la aqoonin faidaa fashaa fiihim waladu zina hadday cunugii zinadu hadduu yimaadood aragtaan cunug zina oo tiro badan aad aragtid awshaka an yacummahum bicadaabin ilaahay cadaab buu dadkaa dul saaraa waa xadiid imaam axmed wariyey meeshu qoyskii zinadu ka timid buu ka bilowdaa ciqaabtu dadkii baa ciqaab ilaahay dul saaraa ha ku fakerin inaad aragtid qof zinaysanaya oo zinadii ilaahay samaynaya oo qof cafiif ah oo dhowrsoon la mida afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun isku mid ma aha ma dhici karto qalbigaad ka ooyaysaa waad murugaysan tahay waad zinaysatay waan ogahay ilaah waa qafuuru raxiim haddaad toobad keento wuu kaa dhaafaya laakiin inta aad zinada qayb ka mid ah ku jirto walow ha ahaato telefoon walow ha ahaato internet aad ka daawatay filimaan qaaqaawan walow ha ahaato cajalado inta aad zina ku dhex jirto ciqaabtaasi kaama harayso